معلنك maamuus dalkeenna kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday maamuus dalkeenna kii ku yeeshay magaco loo wada maqsuuday mugdiga iyo jahliga isaga masaxaye معلنكينا مسك حاجات سمرتي كبوت لما عليكالي معلنكالي علمي مقوين ولقى معاش معلنكالي معلنكالي عدنا لما مسالي مولهيو أبال مريد عدنا لما مسالي مولهيو أبال مريد آمين آمين الله يو أبال مريد معلنك الله يو أبال مريد أخطير تمقع علي السقي سو مريد معلنكينا علمي سماح قفل بميس معلنكالي مرتبة في عن مسكح كبير معلنكالي عدنا لما مسالي مولهيو أبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحالة تقول لك حفلت نقول طلقان نقول منطقة حديدة نقول مدوسيان فصل كاللحاد تكون نيو بنادر فصل كاس وفصل عاد وناكسن فصل الله قلنا سيدا سوكل عادي وناكسيهم وأنهم هاد علينا إن شاء الله وحان أرجينا نقول يوم إلي قالان وحبرش حير صلاة حير والبحر كسي وناكسن مرة والبعيني يسي سلطان marka xiga anaga waxaan laga rabaa haddaan nahay macallimiintii ama maamulayaashii dugsiga mataqaanaa ardaydaas waxa ay soo barteen oo wanaag ah annagana inaan wanaaggaas wanaag kasii wanaagsan aan ugu gudno sidaan ugu gudi lahayn aan ku talagalno insha allahu tacaala waana ugu gudi doonaa waana mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ardaydii soo agaasimtay xafladan quruxda badan waan u mahadcelinaynaa sababtoo ah waxay garteen waxaysan garan asaagood adinkana waxay idiin tahay horutabin sababtoo ah ardaydan walaalihiina ay fasalka lixaad jooga waxay isku soo xilqaameen ayagoo cid ku garabsiisay jirnin inay macallimiintooda dhiirageliyaan ugana qayb qaataan maalinta xafladooda ee maalinta macallimiinta Soomaaliyeed ee 21 November sidaa darteed waxaan leenahay hambalyo 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 waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo idinkuna dardaarmo inaad dadaalkiina waxbarasho halkaas kasii wadaan sababtoo ah waxaa jirta oraad haysan qofku wanaag oo bilowgiisa leeyahay marnaba kama qaado asagu sidaa darteed waxaan leeyahay waxaan idin rajeynayaa waqti wanaagsan guul waxbarasho insha allahu tacaala waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macallimiinta iyo ardayda soo qabanqaabiyey xafladan aad u qurux badan ee fasalka lixaadka lagu guddoonsiinayo abaalmarinta iyo macallimiinta waxa u dhigo fasalkooda iyo dhammaan ardayda iskuulka iyo banaadir marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay soo qabanqaabinta xafladan aadka u quruxda badan waxaan u rajeynayaa ayagana inay horumar fiican gaaraan insha allah waxbarashadana si fiican u dhamaystaan muxuu ahay dadka arkaysid dhammaanta macallimiintan wax kuu dhigaya laftirkooda ayagana maanta meesha taagan tahay kasoo bilaabeen fasalka maraysiida soo wada mareen qaabkaa tahay usoo dhaqmeen macallimiina wax soo dhigay adigana sidoo kale waxaa laga doonayaa marka inaad sii wadid ilaa intaa ka dhamaysid waxbarashada aadan iyo jirin waxaana jeclaan lahay mar kale iyo mar saddexaadba inaan u mahadceliyo dhammaan ardayda soo qabanqaabisa xafladda
waana mahadsantihiin dhammaan. aada ugu faraxsanahay New Banaadir inay xafladan maanta soo agaasinto anigoo kamid ah xubin kamid ah macallimiinta inaan farxadiina idin la qaato aada ugu faraxsanahay dhammaan waxaa idin leeyahay guul iyo gobonimo waxbarashada ha waarto horeyna u socda u taagana waxay tahay waxbarashada waxay tahay furaha nolosha waaye adduunkan qofku wax barto qof waliba jeclaanay laakiin ninka jaahilka kulliito wuxuu noqonayaa inuu xamaali iska ahaado dumarkan markay wax bartaan waxa waaye waaba dugsi gaar waayo hooyay noqonaysaa reeray dhisanaysaa marka reerkeedaas wax badan ay kusoo kordhinaysaa ragii wax bartana wadankay wax u qabanayaano wadanka horumarkiisii wanaagiisa ka tali doonaan marka guul iyo gobonimo insha Allah waxaa idin leeyahay waxbarashada halkan ayaa loogu sii tegin horaha loo sii wado hadii kulliito waxaa joogtaan heerka hoose balse hadda waxaa idin rajeeyo doonaa inaad gaartaan dugsiga sare qalin jibisaan dan waxbarashada aad ka harin oo jaamacad ah ku sii dartaan si waxbarashadiina ay u sii noqoto heer level sare marka waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.